kuna qanacsannahay qaabkii doorashadu ay u dhacday oo muxuu ahaa halkan ka dhacdo gudoomiyaha iyo qaabkii dambeeto oo run ahaantii lagu ansixiyay labadii shakhsi ay isu tanaasushay oo ahaa xogayaha guud ayadoo aad loogu baahnaa qaabkii dambe ee ahaa gacantaaga sababtoo ah laba qof ay isu tanaasushay keliya macne ma samaynayso meesha doorasho inay ka dhacdo waaye marka qof hadduu ka haray qofta kaleeto waa in gacantaag loo sameeyaa ayadana waa ay dhacday aad iyo aad baan ugu qanacsannahay anigoo magaca wasaaradda shaqada ku shaqeeya ku hadlaya waana la shaqaynayaa maadaama ay jiraan muxuu ahaa waddanku xaalada uu ku jiro waxaan codsan lahaa xildhibaanada maanta goobjoogka ka ah mas-uuliyiinta kaleeto oo ugu horeeya fariiqaanka guud inay warqad saxiixaan goobjoognimo ah oo muxuu ahaa faylkaas annaga naloo keeni doono aan gelino oo maalintii dambeetee loo baahdo markaas waxaa goobjoog ka ahaa hebel iyo hebel iyo hebel oo xildhibaanada ka mid ah iyo gariiqaanka guud ee dowladda iyo qabiil hore oo muxuu ahaa ka tirsanaa ururadii hore ee shaqaalihii dowladdii dhexe ee muxuu ahaa maxamed siyaad bare marka aad iyo aad u mahadsantihiin maxamed cismaan iyo gruubkiisana waan u hambalyaynayaa waxaana loo baahan yahay maxamed cismaan iyo raggiisa muxuu ahaa aan kula dardaarmayaa in bahasha si ficila wax looga qabto innaga wasaaradda shaqada maalin walba waxaa noogu yimaada dad masaakiin ah oo shaqaalaha oo lagu dulmiyo hay-adaha gaarka loo leeyahay annaga ma qarinayno hay-adaha gaarka loo leeyahay shaqaalaha waa dulmiyaan waxaa laga rabaa in wax laga qabto in joornaalada lagu soo qoraa laga rabaa tviyaalka in laga sheegaa la rabaa xuquuqda shaqaalaha waa lagu tuntaa maalin dhaweyto waxaan qaadnay dacwada ay leedahay shaqaale ay soo dacweeyeen hay-ad la yidhaahdo Norwegian People's Aid la yidhaahdo Norwegian People's Aid waxay ka shaqaysaa miinaday ka shaqaysaa shaqaalaha miinaduna xuquuq gaar ah ay leeyihiin shaqaalahaas ayagaa inaan muxuu ahaa xuquuqdooda u soo wada dhicino afarta hay-adooda miinada ka shaqaysa in muxuu ahaa xuquuq gaara la siiyo shaqaalaha miinada ka shaqeeya waa garan kartiin qofta miinada ka shaqeeya way ka halisan tahay qofta xafiiska ka shaqeeya wax qarxa ayuu subax walba qoftaasi kontrola waxaa la rabaa mas-uuliyiinta ururada shaqaalahana inay xafiisyadana noogu yimaadeen wixii aan dhaano waa ku kordhinaynaa khabiirkoodu waa u joogaa laakiin sidii loo doortay inay u shaqeeyaan oo muxuu ahaa dadka masaakiinta ah ee u shaqeeya hay-adaha gaarka loo leeyahay oo lacagaha badan ka kasbaday waddanka in xuquuqdooda laga helo saacadaha shaqada la ilaaliyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu